bismillaahi araxmaani araxiim su-aashani walaalayaal waxay ku saabsiisan tahay waa maxay xikmadda ilaahay u xarimay hilibka doofaarka cunidiisa waxayna su-aashu noqonaysaa sida tan dad badan waxay sheegaan inaynu nool nahay casrigii influwensiga doofaarka dhibteediina waa la dhadhamiyey dadka qaar ka shaqeeya caafimaadka waxay dhahaan waxa kan ay muslimiintu ka sheekeeyaan ee ah hilibka doofaarka dhibtiisa waxaan kaga jawaabi karaynaa dhowr jawaabood oo ay ka mid tahay in kumanaan sannadood dadku ay cunayeen hilibkan doofaarka manaynaan maqal wax ka cabanaya cudurrada doofaarka hadday xujadaasi xaqiiqo tahay way joojin lahaayeen dadkaasi cunidda doofaarka waxay weli dareemayaan caafimaad talabaadna waxay tahay in dad badani ay dhahaan ama ay ku doodaan doofaarku waa xayawaan najaas ah oo cuna saxarada bakhtiga iyo wixii la midka ah bal ka waran haddii aan soo qaado doofaarkii oo aan ku rabeeyo meel nadiif ah oo laga fogeeyey nijaasada jawaabtii waxay noqonaysaa xikmadda rabbaaniga ah waxay tahay hadduu ilaahay xarimo shaygaasi waa xaaraan hadduu wax xalaaleeyana waxaasi waa xalaal ilaahina wuxuu ku xarimay cunidda doofaarka hilibkiisa kitaabka weyn ee qur'aanka kariimka xurimat calaykum almaytatu waddamu walaxmu lkhinziiri wamaa uhilla ligayri illahi bih waxaa laydinka xarimay bakhtiga dhiigga iyo hilibka doofaarka iyo wixii lagu bireeyey waxaan magaca ilaahay ahayn waa suuradda maa'ida aayadda 3 run ahaantii saynisyahanada iyo culummadu way caddeeyeen in qur'aankan kariimka ahi wax allaaliya wuxuu ka warrama ay yihiin xaqiiqo run iyo dhab ha ahaato arrimaha ku saabsiisan hilibka doofaarka dhiigga ama cuntooyinka ilaahay kayrkii loo gowracabe ugu horrayn doofaarku waa xayawaan nijaas ah kudaafadana cuna meydkana cuna xitaa haddii lagu rabeeyo meel nadiif ah oo ka madhan wasakh iyo nijaasaba doofaarku fidradiisa iyo sida loo abuuray ayaa ah inuu cuno wixii nijaas ah haba ahaato waxa uu cunayo saxaradiisabe mana awoodi karaysid inaad beddesho dhaqankiisa si kastoo aad isugu daydid talabaad waxa ay cilmiga iyo saynisyahannaduba ay caddeeyeen in duxda ama saliidda iyo baruurta doofaarka ee hilibkiisa saaran aan jidhka bani aadamku haba yaraatee aanu ridqi karaynin waxna aanu ka faa'iidaynin caloosha bani aadamku ma shiidi karayso saliidda doofaarka iyo baruurtiisa toonna sidoo kalena beerku ma kaydin karo sidaa awgeed duxdii waxay ku ururaysaa oo kusoo hadhaysaa jidhka bani aadamka taasoo ku keenaysa cudurro badan gaar ahaana cudurrada ku dhaca wareegga dhiigga xididada dhiigga iyo halbowlayaasha keena dhiigga wadanaha ta saddexaad nidaamka cuntada ee doofaarku wuxuu la mid yahay nidaamka cuntada ee bani aadamka culummada barashada cilmiga noolaha ee biologistiga loo yaqaano waxay u qaybiyaan nidaamka cuntooyinka 3 qaybood xayawaan cuna hilibka xayawaan kale oo cuna dhirta daaqa iyo doogga iyo kuwo kale oo cuna hilibka iyo dhirtaba bani aadamku wuxuu ka mid yahay noolaha cuna labadaba hilibka iyo dhirtaba doofaarkuna sidoo kale wuxuu cunaa hilibka iyo dhirtaba sidaa daraaddeed doofaarku cunidiisu wuxuu sababayaa cudurro badan waxay culummadu dhahaan jidhka doofaarka waxaa ku jira 40 nooc oo cudur oo ay sababaan jeermiska fayraska iyo bakteriyaduba waxaa dhici karaysa in dadka qaar isweydiiyaan cudurradaasi haddii ay jiraan miyayna dadku ogeyn dabcan haa dadku way og yihiin in cudurro halis ah uu leeyahay cunidda doofaarku wayna cunaan haddana sidoo kale way og yihiin inuu khamrigu dhib uu leeyahay haddana way cabbaan wayna la socdaan in sigaarka cabbidiisu halis weyn ay ku tahay caafimaadkooda haddana waa la cabbaa waxaa kale ay og yihiin in daroogadu khatar ay ku tahay caafimaadkooda haddana way cunaan insaanku sidiisaba naftiisa halis ayuu ku yahay iyadoo lasoo farageliyo mooyaane sidaa awgeed waa in amar rabbaani ah oo xagga ilaahay ka yimid waa inuu soo afjaraa dhibkaas iyo kadeedkaas waana mahadda ilaahaye waa laynoo caddeeyey innaka haddaan nahay muslimiin in doofaarka cunidiisu ay xaaraan ay tahay su'aal baa soo noqnoqota had iyo jeeraale muxuu ilaahay u abuuray doofaarka haddii doofaarku dhibta intaa la eg uu u leeyahay bulshada iyo deegaanka ayadoon ognahay in ilaahay aanu noole koonkan jooga u abuurin cayaar iyo dheeldheelba wuxuu ku jawaabay doctor zaklula najaar kolkii su'aashan la weydiiyey
rabbigeen subxaana wa tacaala wuxuu u abuuray doofaarka si uu dhulka uga nadiifiyo wasakhda, nijaasada, kudaafadda iyo meydkaba. doofaarku maaha cunno bani aadam ee shaqadiisu waa inuu nadiifiyo deegaanka. waana xayawaan duurjoog ah oo bani aadamku ay hoosta soo gashteen oo ay barbaarsadeen. erayadaasina waa erayadii doctor Zaqlul An-Najjar. ayadoo laga duulaya haddaba caddaymahaas iyo daliiladana waa in laga taxadaraa walaalayaal cuntooyinka ay ku jirto hilibka doofaarku, sida hamburgerka ama jibista iyo baradhada la shiilay iyo hilibkiisa la dubay ama kala kariyeyba. waxaa kaloo xaaraan ah caanihiisa, subagiisa iyo haragiisaba. dhanka kale, ka ganacsiga doofaarka hilibkiisa iyo rabayntiisa, waarididiisa iyo soo dejintiisa iyo qaybintiisuba ma banaana, sababtoo ah hadduu ilaahay shay xarimo waxa kaloo uu xarimaa ka shaqayntiisa iyo dheeftiisaba. wallahu aclam, ilaahay baana og xaqiiqada. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.